Bismillah, assalaamu calaykum. Kusoo dhawaad mar kale iyo darsigeennii ku saabsanaa barashada kombiyuutarka, gaar ahaan maadada A+-ka. Maanta taariikhdu waa 1 bisha 4 2020. Waxaan kusoo guda jirnay weli cashirkeena ku saabsan CPU-ga, Central Processing Unit. haddana caawa intaan ku dari karnaa ku dareena haddii noo dhimaan weysana cashir kalento yani wuu sii gaari doona hadduu ilaah yiraahdo. kusoo dhawaada mar kalento. waxaan qaadanaynaa caawa qaybaha CPU-gu ka kooban yahay, CPU components. xal xoogaa yar waan kasoo tataabanay si gaar labadan qaybood, arithmetic logic unit ALU iyo control unit CU-ga. marka kaasha noo raacsiisan caawa iyo labadan naftirkooda qaabka aan xalay uga hadalnay qaab kalento oo ayagana loo baahan yahay kasi mudan ayadana waan soo gudbinayna insha Allah, maadaama ila kala duwan iyo qaab kala duwan iyo wax kastoo nuxur aan u arko aan soo qaato. Okay, arithmetic logic unit ALU waa qaybta qaabilsan ama qabata howlaha la xiriira xisaabaadka. waxay ka mid tahay CPU-ga component qaybuhu ka kooban yahay. marka soo qaybtan waxay qaabilsan tahay waxyaabaha la xiriira xisaabaadka sida isku darka, addition, kala jarka, subtraction, qaybinta, division iyo isku dhufashada, multiplication. weliba wuxuu xisaabaadkaas uga shaqeeyaa si caqli gal ah oo maskax sugan ka soo maaxatay ilaa ay xad. yani bini'aadanka wax waa iloobi karaa, waa khaldi karaa, laakiin kombiyuutarka wax ma ilooba, wax ma khaldayo, wuu halaabi karaa bis. ciladun baa ku imaan karta, marka waa halaabi karaa laakiin wax ma ilooba inta badan. ciladun baa ku imaanayso. They don't forget but they can ciladun baa la soo gudbinaa karto. xogta ama waxyaabaha uu ka shaqeynayo wuxuu ku sii kaydsadaa registers inta uu hawsha ka qabanayo. si kale haddii aan u dhaho, registerska waa meesha uu CPU-ga ku qabanayo shaqada. miiska uu shaqada ku dul qabanayo ayaa registers la yiraahdaa. control unit iyadana CU-ga si kooban waa qaybta qaabilsan waqtiyeenta, sababta wax kastoo la qabanayo waa inay lahaadaan waqti, lifetime waa inay lahaadaan, iyo controlida waxa sida u dhaceen iyo sida u qabsoomayaan waa loo baahan yahay. waqtigana inay ku qabsoomaan ayadana waa loo baahan yahay oo waqtiyeysan. waxayna hagtaa howlaha CPU-ga, hagidda iyo wax dhamarka iyada qaabilsan. waxay u sheegtaa memory-ga, arithmetic and logic unit, input and output devices-ka sida ay uga jawaab celinayaan amarada loo diro processor-ka. kuwaas ayay u sheegtaa. inta hadda af Soomaaliga ku dhaho in English hawa. Control unit description. The control unit is a component of a computer's central processing unit that directs the operation of the processor. It tells the computer's memory, arithmetic and logic unit, and input and output devices how to respond to the instructions that have been sent to the processor. Okay, cache qaybta saddexaad. Master cache may refer to any of the following. waxaa lagu qeexi karaa marka waxyaabaha soo socda midkood labo qaybood. mid pronounced waxaa loogu dhawaaqaa like the physical form of money. lacagta aan physicalka ah gacanta aan ku qabano ama naga hor muuqato maxaan dhahnaa cash. marka qaabkaas baa ugu dhawaaqaysaa dhawaaq ahaan. marka cash is a high speed access area. waa area access-kooda waa aad u sareeya speed-kooda. that can be a reserved section of main memory. yani waxay reserve ka tahay main memory-ga. memory-ga intaan la gaarin ayadaa markaa high speed access ah, or waxay kaloo tahay ama ay tahay on storage device. si kooban waa storage device, laakiin
aan ahayn kii weynaa meel suko waa adigoo alaab meel fog inta ka doon lahayd soo dhaweysatay. So the two main types of cache labada qayb ugu waaweyn cache-ka waxay kala yihiin memory cache iyo disk cache. So cache-ka naftirkiisa laba loo kala qaybiyay memory cache iyo disk cache maxay kala yihiin marka. So memory cache aan ku horeyno is a portion of the high speed SRAM waa qayb ka mid ah SRAM-ka oo maaragtay surcadiisu ay sareyso kaasoo la yiraahdo SRAM-ka waxay u taagan tahay static random access memory and is effective mid saameyn leh waa because most programs access the same data sababtoo ah maaragtay programmo badan ayaa waxay gudbaan the same data or instructions repeatedly si marka oo soo noqod leh ayay usoo gudbiyaan datada instruction-ka. So by keeping as much of this information as possible in SRAM inta xogtan lagu xifdinayo SRAM-ka ku jirto the computer-ka avoids wuxuu ka fogaadaa accessing inuu u gudbo the slower DRAM adoo meel dhow ka dhaamin karo meel dheer ma aadaysid marka DRAM oo ka fog so DRAM-ka hadii wixii laga heli karo oo cache-ka ee alaabta ay taalo meel suka ay ku taalo so meel dheer kama dhaaminaysid wax ma ka doonayo CPU. So making the computer perform faster and more efficiently. So taas marka computerka waxay ka dhigaysaa mid shaqadiisa uu si dhaqso u qabso haboon sida ugu mudan ugu dhaqsiyaha badan ayuu u qabanaa shaqadiisa marka computerka. So maanta computerada badankooda waxay la yimaadaan ay leeyihiin level 3 cache ama level 2 cache ayay wataan marka kuwii hore loo bardhigana waxay lahaayeen only one cache while older computers included only level 1 cache. So with the internet browsers markaan internetka browserka aan kacsano Chrome-ka ama maaragtay internet explorer-ka wixii la mid ah cache is a temporary storage cache is a temporary storage waa storage area waa meel si ku meel gaar ah loogu keediyo website-yadii where websites data is stored. Website-yada markaad qortid ama kii aad booqanaysa bbc.com ama jowhar.com wuxuu ahaadaba so haddaad mar booqatid mar labaad markaad u baahatid markaad jaadi qortid jowhar jaadi markaad qorto inta kale asaas dhammaystiraa meeshuu kugu keedsan yahay. So by catching this data qabashada datadan la qabanayo the web browser can improve performance by loading data from your disk. So meesha marka ay ku keedsan tahay waxa waaye waa diskiga waa marka meeshaasay hawsha ka fududaanaysaa si dhaqsa instead intuu u doonan lahaa of the internet. So if it's ever needed again marka haddii mar kale inta loo baahdo meesha internetka doonin lahaa diskiga ku jirta marka cache diskiga. So in most cases marka xaaladaha badankooda ama xaaladaha badan inta badan xaaladaha each time you open a web page furtid the page and all its files are sent to the browser's temporary cache on the hard drive waa isla inta hadda. So meeshu bay ku jiraan haddaan marka isbedel dhicin marka feelashii wixii dhan meesha loo diray waxa si ku meel gaar ah cache-kaasi ugu jiraan oo waliba hard drive-ka ay ku sii jiraan. So if the web page and its resources have not changed since the last time you viewed it haddaan waxba laga bedelin marka web page-ka iyo source-yadooda ilaahay wax ka qaataan ka helaan aan waxba laga bedelin ilaa marka ugu dambeysay aad booqanaysa lagu soo yani bandhigay. So the browser loads the data from cache rather than downloading the files again. Intuu marka inta file-ka uu soo download gareyn lahaa serverka email-ha uu ka doonan lahaa so marka cache-ka ayuu ka soo dejistaa. Cache saves a lot of time cache-ka waqti badan oo save garaya especially if you use a modem gaar ahaan marka modem isticmaalaysid and can also help it save on bandwidth for the website owner. So labada dhinacba faa'iido ayaa lagu qabaa adiga iyo cidda iskale web. Okay, talo wanaagsan. Anyone concerned about the privacy cid kasta marka si gaar ah u daneynayso privacy-gooda waxyaabaha u gaarka ah or want to hide pages ama raba inay qariyaan bogaga they have visited ay booqdeen maxay sameyn karaan marka can clear their internet cache-kooda way masixi karaan. So history-gu baa tagaysaa waa clear gareynaysaa.